qasooyinku san idiin sheegay iska badan yihiin. xajkii dhaweyd berigii dhaweyd xajkii hadda ahaa baa nin sheekh oo masri oo isku wadan ka nimid qatar ka wadan baa hadlaya. mawduuc wuxuu ku keenay garan maayo, waxayba ahayd maalmihii xajka, laakiin mawduuc cajaa'ib leh yani sheekada buu ka bilaabayba. dad badan buu la hadlaya. wuxuu yihi masar, meesha masar la yidhaha baa cimaaro waa taqaanaan, building weyn ayaa gubtay, bahal baa ku qarxay, waa gubatay, cimaaradii o dhan waa gubatay, bel waa isla gubtay. waxaa ku nool buu yihi kamida dadka ku nool reer ka kooban qof dumara oo caruur leh, oo weliba mid ilmo markaas naaska ay nuujinayso oo radiica, iyo hooyadeed oo duq ah ayaa la nool. intaas ninkii guriga lahaa ma joogo, waa ka maqan. dabkii baa qabsaday, suu u socday, gurigii buu gaaray. gurigii markuu gaaray dabkii baa qabsaday, waxay noqotay marka in laga cararo, inay ilmihii la fakato. marka ilmaheedu waa badan yihiin, marba mid bay daftaa, waa la fakataa, marba mid. waxaa isku soo gaaray, isku qabsaday bu markii ugu dambeysay dabkii iyo qaraxii ugu weynaa, iyo hooyadeed iyo ilmihii ay dhashay oo markaa radiic ahaa, naaska nuugayay. mid hadday qaada ka kalena qaraxii baa ku dhacay, gaaskii wixii dhan baa isqabsaday. marka waa arrin khatar ahoo waana mowqif xasaasa wey, khatiir ah. kana ilmahan waa beerkeedii, kana waa hooyadeed, keebay marka wuxuu yihi sheekhu ilaahay wuxuu waafajiyey inay ilmihii iska dayso, hooyadeed ay qaado. hooyadeed ma socon karto, hooyadeed bay daf tiri, la booday, markaasay meeshii ku tuurtay, ay kula cararaysay gurigii kale. sidaadii ay yeeshay baa qurigii isla qarxay, qolkii oo dhan, shaqadii oo dhan baa bug, ma laa soo geli kara marka. iyadoo markaa indhaheeda shano ay arkayso ayaa meeshay isla dambast noqotay. ilmihii yaraan oo ku jira, dadkii waa la farxay, waa maashi waa loogu, laakiin iyadii ma farxi karto, dee ilmaheedii oo naaska nuugayay bay kasoo tagtay. laakiin maxay badbaadisay hooyadeed? sheekh wuxuu noogu dhaartay, sheekh muwaafi baa leedahay, wuxuu yihi markii la yimid qoladii dabdamiska yimaadeen, ayib meeshii wada dambas bay noqotay. wixii bay marka soo inay kala qaadqaadaan oo bal wixii ilmihii fiiriyaan. sheekha ilaahay magaciisuu ku dhaartay, wallahi buu yihi waxaa loo tegay ilmihii yaraa oo sidiisii u ooyaya, oo wax tinna ayna ka guban, meel la waxba ka gaadhin, guriga intiisii kale xataa sariirtii uu ku jiifay dambas bay noqotay. ilaa ilmahaas yaa badbaadiyey allah rab اlcaalamiin. nabi ibraahim qulnaa ya naaru kunii bardan wasalaama calى ibrahim, soo mahay qaadirun calى kuli shay. waa dabaan waxba reebaynin. ilmaha yar ilahay baa badbaadiyey, lakin muxuu ku badbaadiyey? sabab bay leedaho, waa sababta hooyadeed. doorashada ay dooratay inay hooyadeed ay ma aragtay door bido, ilmaha ka door bido, ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ku badbaadiyay ilmahaas.